weli ma la yaabantaa sheekada aadan adiga ahaan wax wara ka haynin ee marba marka ka dambeysa sawir ahaan aad ugu arkayso baraha bulshada. Sawirkan wiil Turki ah oo loo garan yahay Qadiir, kaasi oo awood u yeeshay inuu ka yaabiyo ama uu ka uusiyo gabdhaha Soomaalida ah markii uu jilin ahaan ugu dhintay filin uu qayb ka ahaa. Waa kuma Khalid Özgüç, dhimashadiisa ma dhab mise waa jilin ku xeeran filim taxana ahaa uu qayb ka ahaa isagu. maxaa gabdho badan sawiradiisa ay u soo dhigayaan baraha bulshada, kuwa la ilmeynayaan oo ay muuqaalo isaga soo duubayaan si ay fariin ugu diraan wiilkan Turkiga ah ee musalsalka aktarka ka ahaa. sirtii sababta soo jiidatay daawashada filimkiisa Walaalaha iyo xaqiiqooyin laga yaabo inaadan ka ogeyn Master Khalid Özgüç. haddii aad doonaysid inaad wax badan ka ogaato, fadlan like saar muuqaalkan si uu saaxiibo badan u gaaro. u share garee asxaabtaada kale ee Facebook ama YouTube, kuna soo bir boggeena oo like iyo follow saar, sidoo kale subscribe saar channelkeena. waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyo la jaanqaadkaaga. waxaa baryahan si weyn baraha bulshada Turkiga iyo kuwa daafaha caalamkaba u gilgilay xogtii la xiriirta jilaaga taxanaha Brothers ee Khalid Özgüç, balse intiina badan aad u wada garanaysaan magaca Qadiir oo baryahan noqday kuwa ay inta ugu badan gabdhaha Soomaalida ku qoraan baraha bulshada. magacan waa midka uu taxanaha Walaalaha ku jilay aktarkan Turkiga ah. Khalid Özgüç ayaana qof mar walba kaga qiiraysiiyay doorkiisa taxanaha Brothers, isagoona ku jilay wiil ay duruufo adag soo wajaheen, balse dhammaan dadka waxaa shoog weyn ku noqday geerida ku timid isaga xalqada 29aad ee musalsalka, taasi oo weliba ay si weyn uga murugoodeen daawadayaashii filimkaasi oo ka socda kanaalka Turkishka ah ee ATV. Khalid Özgüç ayaa ku dhashay magaalada Istanbul 4 Oktoobar sanadii 1993, isagoo waa 28 jir fanka Turkiga ku soo biiray sanadii 2018. kadib markii uu dhameeyay Khalid waxbarashadiisa dugsiga sare, wuxuu ku biiray jaamacadda Belgiya, isagoona halkaas ka bartay kuuriyada dhaqaalaha. markii uu jaamacadda dhameeyay, waxa uu u boqolay barashada jilinka iyo aktarnimada, isagoo xilli hore bartay qaabka wax loo jilo. Khalid markii uu dhameeyay waxbarashada jilinka ayuu guda galay sidii uu door uga heli lahaa musalsalada Turkiga, wuxuuna nasiib wanaag door lama filaan ka qaatay taxanaha Drillies Ertuğrul ee uu hogaaminayay jilaaga Engin Altal. Khalid ayaa ku baasay tijaabadii dhanka jilinka ee laga qaaday, wuxuuna sidaas ku jilay musalsalka Drillies Ertuğrul seasonkiisii ugu dambeeyay shanaad, kaasi oo socday intii u dhaxaysay 2018-2019. wuxuuna Khalid taxanahaasi ku jilay doorka Suleyman Bey oo gabdhaha musalsalka daawaday ay si weyn u yaqaanaan. kadib markii uu dhammaaday taxanaha Drillies, waxaa sidaasi ku soo gabagaboobay doorkiisii Suleyman Bey. sida awgeed Khalid ayaa halkaasi ka sii watay jilinkiisa musalsalada, wuxuuna sanadii 2019 la yimid taxanaha Sampiyon, isagoona ku jilay doorka Cream. sanadkii xigay 2020 bilowgiisii waxa uu ka soo muuqday taxanaha The Protector oo ah taxana aanan ka bixin TV-yada, balse shirkadda Netflix ay baahiso. waxaana taxanahaasi uu soo bilowday sanadii 2017. isla sanadkii 2020 wuxuu door kale ku yeeshay taxanaha Kirmizya Order, balse ma sii waarin doorkiisa, waxaana u xigtay in sanadan 2021 ee dabayaaqada ah inuu jilaa ka noqday musalsalka Walaalaha, waxaana markii ugu horeysay ku jilay doorka hogaaminta, isagoona ahaa atooraha koowaad ee taxanahaasi. Khalid Özgüç ayaana si weyn loogu ammaanay doorkiisa Qadiir ee uu ku jilayay taxanaha Brothers, oo ka mid ah kuwa loogu daawashada badnaa sanada dabayaaqada ah 2021. balse waxaa shoogay lama filaan qof walba ku noqotay kadib markii xalqadii 29aad uu soo baxay sabtidii la soo dhaafay la iclaamiyay in Qadiir uu geeriyooday. dadka qaar ee u dhuundalay la dhanka filimada waxay aaminsan yihiin in Qadiir uu dhintay mar kalena uu dib u soo noolaan doonin, laakiin sheekadaasi waa wax iska jilayna haddii si toos loo fahmo. haddii aad booqato bartiisa Instagram-ka, waxaad arkaysaa isagoo sawirro soo dhigaya, taasi waxa ay tahay dhab ahaan inuu filin ahaan u dhintay, balse Qadiir uu nool yahay. gabdhaha Soomaalida ah ee baraha bulshada isticmaala ayaa ooyin iyo buunbuuninta sawirrada wiilkan baraha bulshada kula soo kalahay
markii ay habeenkii daawadeen inuu geeriyoodo Kadiir, laakiin u sheega isagu waa uu nool yahay. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in gabdho badan oo Soomaali ah ay barta Instagram-ka ee Khalid Osgosh ugu qoreen fariimo dhaadheer oo ku qoran farta Soomaaliga, iyagoo ka codsanaya in dib uu ugu soo laabto musalsalka. gabdhaha Soomaaliyeed waa kuwa beer jilicsan oo aan inaba caadi ahayn. adiga hadda warbixintan ilaa ay dhamaadka daawanaya ma maqashay magaca Kadiir, sawirada wiilkanna baraha bulshada ma ku aragtay? halkan meeshan ka dheh gabaran u maleysay inuu si dhab u dhintay wiilkan Turkiga ah. adiga sidee baad ula falgashay arrintan? sidee ayaad nooga falcelisay geerida filin ahaan ee wiilka Turkiga ah Kadiir? ilaa dhamaadka aad nala joogtay, aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee commentiga. ha hilmaamin inaad like saarto muuqaalkan si uu saaxiibo badan u gaaro. haddii aad YouTube-ka inaga daawanayso, subscribe saar channel-ka. sidoo kale haddii aad barta Facebook inaga daawanaysana follow dheh si aan kula socodsiino dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee laga hadlayo caalamka oo dhan.